مسؤولين وهركعيو قداميها قبل كمدو حسن محمد خليف أقاسمها إسبيتال كجودة قبل كمدو قار كمدو أنا بدون نضي وحجرت كقبل كايا حركة كتشري حرون عافماد ولقيه رجلي ديان كجودة أردنا عبري كحجة مقالة قال كايا حرون قبل كمدو ورين وحال كاسيكا هذا قار كمدة تذكي كسوق بقلية مناسبة أسي حركة لقيتري MCH كديان كجودة أنت كدي واحد ربعين أنو مهد عليو قبله TTW oo noo dhisay MCH kan kuna daray qaybta labada qol iyo daydka oo qolna yahay 6 mitir iyo 40 qaybina tahay 4 mitir iyo 20 iyo balabalada iyo daydka waxaan leenahay wixiina wax khayr Allah idinku bedelo aakhirana miisaanka xasanaadka Allah idinku kabo inta kadib waxaan rabaa inaan gabdhaha soo jooga London inta kadib waxaan rabaa inaan gudoomiyaha gobolka iyo caafimaadka iyo kulli aan weydiisano iyagoo heer gobol ah in isbitaalkan la dhisay oo meesha laga sameeyay oo isugu jira mid hay'ada qabteen iyo mid dadka bulshada u adeegayo oo hantidooda u horaya ay dhiseen in iyaguna noogu deeqaan caafimaadkii inuu horumar arrimaha bulshada oo dhinaca caafimaadka aynu ka sameynay oo aanu furay xaruntii caafimaadka ee deegaanka Godad marka anoo wakiilka wasaaradda caafimaadka Puntland misna wakiilka siyaasadda caafimaadka gobolka Mudug ahna agaasimaha guud ee gobolka isbitaalka gobolka Mudug aad iyo aad baan waxa mahad weyn uga celinayaa inta ka qayb qaadatay mashruuca inuu dhaco runtii anaga laba arrimood oo muhiim ah ahayd wadankeena siyaasadeena oo ahayd inaan isku tashanno iyo mar labaad caafimaadka inaynu gaarsiino meelaha laamiga ka baxsan ayaynu maanta waxaan u jeednaa iyadoo hirgalay xaruntaani laamiga way ka baxsan tahay dadkuna waxay bilaabeen inay isku tashadaan qolada wasaaradda caafimaadka oo maamul ahaan isbitaalkan hoos imaanayo inaanu agabkii iyo horumarintiisa iyo tababarka shaqaalaha hadii la yiraahdo iyo inaan muxuu hataa dhisidisa si balaarin inaan si wadno baabalanaga ah halkan maanta waxaa laga furay isbitaal MCH iyo isugu jira caafimaad baa laga furay qayb awal dhisnayd gabdhaha London oo qaybta ku daray isbitaalkan oo dhisay si gaar ah ugu mahad celinayna waxa iiga muuqanaya qalab solar oo meesha saaran iyo bateriyaal talaagado marawaxada ku xiran meesha nal la rabo inay shaqeeyaan waqti kasta inay shaqeeyaan oo loo baahdo waxayna u baahan yihiin in la barto qof aan aqoon u ka shaqeyn lana dhaqaalaysto qalabkaas iyo wixii la idin keeno kale gudoomiyaha gobolka Mudug Xasan Maxamed Khaliif ayaa waxa uu sheegay in xaruntan ay wax badan ay ka tari doonto baahiyaha dhinaca caafimaadka ee deegaanka Godad bulshada ku dhaqanay u baahan tahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in aan ka soo qayb galno xaruntan cusub oo xariga laga jarayo oo ilaahay maartay noo aqbalay laakiin la dadaalay oo dadaalka ku timid sidii oo madaxweynaheena halku dhagiisa ahayd isku tashi in la isku tashado oo ay dadku wax qabsadaan dad wax qabsaday baa qabtay dadka waa u mahad celinaynaa waana u ducaynaynaa waxaana leenahay dadka kalena ha ku daydo oo dalka horumarkiisa laga shaqeeyo waa soo dhaweynaynaa maamul ahaan iyo dawlad ahaanba waana la tayeenayaa shaqaalaha daawo iyo wixii kale oo loogu dari karana waa la siinayaa Xuseen Axmed Faarax Daari warbaahinta Koonfur Galbeed TV kalkayo